munaasabad casho sharaf oo lagu guddoonsiinayay abaalmarino kala duwan kooxda Wadajir FC oo ay maalgeliso shirkadda duulimaadka ee Kalkal Travel Agency ayaa waxa lagu qabtay hotelka Nuuro International magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika. munaasabadani oo ay ka soo qayb galeen qeybaha kala duwan ee jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay furitaanka xafladani agaasimaha shirkadda duulimaadka ee Kalkal Travel Agency Absalaan Axmed Nuur isagoona ugu horeyn uga mahad celiyay marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadani. waxaan aad u rajaynayaa in aad dadweynaheena nagala soo qayb galay iyo annagoo company-ga iyo kooxdayagii oo ah Wadajir حشر شرف وناحسين أن نجلس وقيب كشان waxaan kaloo aad u mahad celinayaa kooxda dhalinyarada ahayd sida wanaagsan u soo muujiyay ciyaar wanaaga ee uga soo qayb galay tartankii muddada dheer soo socday ee bisha barakeysan ee Ramadaan ciyaartooygaas oo aad u firfircoona ciyaar fiican wanaajiyay Idruus Ismaaciil Cilmi oo kamid ah guddiga qabanqaabada koobka Ramadaanka ee lagu qabtay magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika ayaa faahfaahin guud ka bixiyay sidii uu ku qabsoomay koobka Ramadaanka. rabaa inaan u mahad celiyo maamulka Salaama Kaashan Keeri iyo Nuuro International oo ah dadkii sponsor gareeyay oo qarashka geliyay koobka bisha Ramadaan. horta mahadda koowaad Ilaahay baa iskale marka labaadna ayaga ku mahadsan oo mahaddaas oo marka xigta waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan ciyaartooydii kooxihii ka qayb qaatay koobka bisha Ramadaan ee sida quruxda badan u dhacay guddigii dadkii soo qaban qaabiyay haddii idinka aydan qabanina waxa soo dhan ma ayna dhici lahayn. lagu guda jiray munaasabadani ayaa goobta lagu guddoonsiiyay abaalmarino kala duwan qaar ka tirsan ciyaartooyda kooxda Wadajir FC iyadoona sidoo kale la guddoonsiiyay koobkii Ramadaanka waxaana bixinta koobka Wadajir u daadihinayay maamulaha shirkadda Kalkal Travel Agency Idriis Cabdi Maxamed iyo agaasimaha Absalaan Axmed Nuur waxaana ka guddoomay koobka kabtanka kooxda Wadajir FC Cabdicasiis Cabdullaahi. gabagabadii munaasabadani ayaa waxaa khudbad dhiirgelin ah goobta ka soo jeediyay injineer Cabdulqaadir Cilmi Calas oo kamid ah aqoon-yahaniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkani Koonfur Afrika isagoona markaasi dhalinyaradii goobta isugu timid ku baraarujiyay inay yihiin kuwii dalkooda dib u dhisi lahaa. wax badan ayaa la ka sugayaa adduunkana waa ogtiin dhalinyarada bedeshay waddankeennana waa dhibaataysan yahay dhibaatadaasna inaad ka qayb qaadataan xalkeeda ayaan in ka rajaynahay. si kastaba ahaatee kooxda Wadajir ayaa noqonaysa kooxdii ugu horeysay ee guuleysatay koobka loo qabtay Ramadaan kaasoo ah koobkii ugu weynaa ugu xiisaha badnaa ee jaaliyada Soomaalida dalkan Koonfur Afrika lagu qabto gaar ahaan magaalada Johannesburg. munaasabadan ayaa lagu guddoonsiiyay koob iyo sharaf Cabdinaasir Soomaali Universal TV Johannesburg.